السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما أنتوا حايدين كذا شيكينا شيكو يعني يقول دعذي لوذو كون لواتينيو لوذي xiligaas muuqaala soo dhigaa inta soo saara oo daabatay 2 milyan oo dad ah muuqaalkaas marka dad badan oo ajaanibi iga soo raaceen den ilaahay oo afkiga been ka qabo 2022 bishii sagaalaad oo maleyn xiligaas ina muuqaalkaas soo dhigay mibi 2 sano waay hada muuqaalkaas yani 2 years camal oo ku qoran ago xiligaas soo dhig camal sheega hadal ay ku badan yahay hadalka muhiimadiisa idin kaga soo qaabana sidii way ahayd maalmaha kamid ah wiil yaman oo dhashtay yaa dadka yamaniinta ah ay ila soo hadlay qoraal oo isoo qoray den wuxuu dhahay yani meela kala soo hadla camal u baahanay waxa soo dhahay ilaahay amarkiis qoraalkii loofa yani qofkooda comment ka soo bixi waqti uu si mugta loofa si shabaka muuqaal kala soo dhigay commentiisa ay ugu soo batay badan marka saawaxii soo dhigay ana markaas youtube ka saad ugu cusub xitaa ilaa xitaa cusbaa still laakiin xiligaasna bilaa ahaa marka muuqaalkaas dhiirigelin oo noqday dad badan dan ninki marka wuxuu dhahay maxaa isla marka maadaama ninkan saan ku leeyahay xagga joogta hadhay sheekadeen way dambeysay dan maalinkii dambe waxaan dhahay numberkayga marka waxaa ku qab meesha oo had ilaa whatsappkayga ilaa facebook xitaa wiil walaalkay meesha ciwaanka oo beeshka aboutiga yani asaaran ma fahamtay wiilkii marka sidii ugu soo hadlay marka wuxuu dhahay hadalkan si fiican u dhageysiyaa wallahi kelmad been ay idin sheegi maayo wiilkii yamanka ahaa wuxuu dhahay waa ila hadlay waa sheekaysane dan wuxuu dhahay waxaa jeclahay dhahay inaan ku caawiyo caawinaad ku sameeyo يعني قف أو باهي كموقت عمل إلى هذا والله مركز عسوسو عمل يعني بهدل كسفيليا أرجع ليستين عليك وعاوي هذا الكاسو إلى مركز عادة هرت عودة مليد هنا إلى أكاون واحد العقل يدون قصة شو ما قبتينه إلى بني آدم كهدوم روح كسيو هرت على أف يعني واحد محيط حلا سمع الماما هذا ما كنت أفوح من إنه حشوك في عام يا موجي مركز سيدا إلى هاي أحد هاي هرت على ما حسنت هذا سودو dan marka waxaa magacahan horta magacu ii sheegay Naasir oo ilaahay laakiin ana Cabdi Naasir la qortay Naasir oo ilaahay marka horta waxaan noloshaada iga sheekayaan ana wuxuu ilaahay yani yamana u dhashtay magaalo ii sheegay magaaladaas ka soo jeeda Malaysia aan ku nool oo ilaahay Malaysia jooga deeq wax barasho camal Malaysia u jooga oo ilaahay marka sidii oo ilaahay marka ana carabiga aad isku ma fiicin xoogaa waaj jabsadaa ma fahamtay then application wuxuu la soo degay Soomaali lagu turjumaa bal ninkaas wuxuu intaas oo dhan dabsan application soo dejiyay Soomaali lagu turjumaa waxaan barkaa habeenada kama ninkii caadi ila sheekaysanaayo hay xaalada seetahay ani waxaan ku dhahay yani malahela yani maxaa dhahay sidii oo salaam baamiyam yani amal express waxaas camal meel lacag lagu soo shubo malahela kugu caawiyo intay ka baxay aan marka waxaan walaalo dhigeysaa dhahay ad waxaan daal maxaa waa aan lacag u baahnaa ma ku dhihin qofka had waxa la youtube iska soo dhigtaa muuqaaladan ma hasantaa maanta lacag dhibaato ima haysaa dhahay ad lacag ka qaadana adana waxa maskaxdeeda galweyse qof deeq oo wax barasho looga deeqisay ad lacag ku siina ana markii yaaban ninkii la yaaban ويصوّع هبين مركو يصوّع فعلا متقانا والله بمشيقة أنا مركو فيديو كله يصوّع فيديو كله مركو يصوّع نينكو استاجي دنو حاوم لينا عادي إن استاج إن يعني قف حوس إنا وحكتها كم وجميع موجي إنا قف نافته إنك الإله نافنا مريجي بحكتها فهم واي استوى يعني استعرب جا استاج أصلينكو استاجي وابنين حوه وجه قفوا ولكن قف إسكت جامع عمل أدمي بنسوي له وموانجرا أهل لكن لحز لحد وقوع marka waxaan ana fiican hadlaynayo video call iga soo wacay wajiga ma qarsaneen xijaab caadi ah wixii xijaabkiga caadi u furnaa waa sheekaysan marka waxaan dhahay adii wuxuu yiri horta ana marka soo isboojeenaa saa isku boojeenaa adduunka ilaahay wallahi nimankan yamanta la dhahay waa niman hadalkooda marka idin soo idin kama hor dhacay teen waxa ku fikiraa ninkan aad lacag u baahan tahay ma dhigin duruufta sheega maxaa duruufta ka muuqan maxaa wiil kitaab siinaysi intaas uu kugu dhax arkay lacag ku siina intay ka baxda qabaxda lacag intay ka imaado horta lacag intay u socotaa حتى مو إلها صومالي هدا جوكت ورالي العاقة صوب حسن هذا مساكين اسمه إلها نوشا كسونا إموجو أصلا دنا صومالي هير مرك ويلك ولا هلا بالويلكس ولا ما مرك هذا الكيس حسوستو نمديس إلك نمديس عقلي جيس إلها ارتاح فيدو صومالي ملوك جوج مو إلها دينو ملسي جوجنا ما أقان إلها ديس مرك يسوي عيد أباي دين سوي رفت حكي جوكتو إلها مقالة أنا جوجا هندا أباي وحود أنا ويل صومالي لا هود هاي لكن مقدش عند جنة هو إلى عدي ذن عد أنا هو إلى عد قبيل كيسو إيش شيء wuxuu ilaa qabiilkan waxaan ka hooyday laftaana ka hooyday maanta nin Soomaaliyeed ahay meel loo raacdana laha ahay ninkan muxuu ku dawsay walaal waa liya banaha dhaay ninkan uu ila soo hadlaa lacag mu ku stuuray ugu hay lacagta meel ka socotay ma aqaan markaas uu gabadha dhigayso nimankan yamanta ah waa niman badan ay jecel yani qaab ay gabdhahan yani ku soo xad gelin lahaayeen waa gabdha dadka maxaa lahayd u badan waa dad gabdhaha magafamiya meel dadka qabsa iyaga u badan inta gabdha muuqaalo ka duubeen xisaab lahayn oo ninkan haduu ku soo waciyaa weelak أنا مرة عارف طبعا ما سنت هذا ولا بنتها معها أنا ما نسكسر عن الموينين إلا ما صح قفك معك سومالي لأنه رشتي إنك هدو ما أنا واحد قالت ولا واحد أوجا واحد أنت لا يجي هم قنانا إلهم كينا
isirkiisa meesha gala iyo meesha ka baxa aqaana wiilka galmudug u dhashtay ama gabadha galmudug u dhalatay galgaduud ama hiiraan ama baay iyo bakool ama sool iyo sanaan qofka u dhashtay Soomaaliga wada yani aan ku helaysidaa jirto laakiin qof aadan aqoonin yani kugu jinsiyad ahayn magaaladiisa aqoon meesha ka soo jeed aadan aqoon hal qof leeyahay taqaan inta ogaanaysa waa may aqligeena saas oo ilaahay uu ii sheegay wiilkaasina ma sha Allah ilaahay khayraas isna wuxuu yiraahdaa ninkaas iska ilaaliyo ilaahay hadda maqluuyo ha walaalo maqashi aan lacag u baahanaa ninkan hadda dad caawinayo dad badan oo masaakiin ah haday jiraan wada la maraha jirta aan lacag u baahani ugu dan marka ninkaas wuxuu u maleynaa inuu ribo wada badan oo isla marka xusna qoftan wadad camal lama gali karo marka sidii ahayd oo isoo waxa uu ila sheekaysanay Yusufka marka wiilkaas sidii uu ilaahay nambarkiisana ma hadalkeena meesha kala hiraan asi marka wuxuu dhaabay nin haduu video kalkaas oo wacayo waxyaabo kale kaga baahan sharaftaada iyo qiimaha uu ku dhil aniga hooyaday aabihi midal wiilkaas laakiin waani ka eed waa maasantaa walaalan ku dhahay dan ani ninka isku soo hir marka wuxuu ii imaaday kulahay la wacay dan marka wuxuu ii imaaday filin ah salaad markii la xirnaayo ducaada oo maxay dhaaf furashada maxaa ii sheeg adi kaal meel u bix marka shalay maxay ahayd number sheeg lacag ku soo shuba inta ka baxa qabba istaag waa istaaga saata ku arkameeno maanta marka wuxuu qoftan lama gali kar camal oo isdhaa salaada marka xirlaysid ducaada oo macnaha ku furtid maxaa ii sheeg ya ducaada salaada ha marka waxa isdhaa ninkan waa u sheegay samaan ducaada dan hadda su'aalo salaad ku saabsan weydiiyo ugu jawaabay dhamaantood fadida tawaydo fiican tahay fadida ma dhahay laakiin maxay dhahay ma sha Allah si fiican oo amaanade ya waa ka qabahan dawla dan wiilka marka isku la hadlay marka gabdhayn waxa ugu faa'iideynaa gabdhaha nimankan Facebook idin kala soo hadlay iska daaya ya nulu adan yani maanta YouTube-keyga nambarkeyga uu saaran yahay WhatsApp-keyga maanta qofka u baahan kama weynaayo anaana dhiganaa isku kalsoonaa ilaa ka baqaayna ma jirto marka qof kasta wax u baahan meesha uu la soo hadli karaa dan marka waxa dhacday wallahi waa xasuustaa hadana habeenimo kamid ah waa baxay gobolka hooy macaana aaday yani hadda waxa bishii May imaanay laakiin inta imaanay bishii labaad baxay meesha hooyadii tii soonka la gaaray marka waxa isla ninkan soo soon kuma dhigi jirin ha maanta kale tijaab waxa ku tijaabay marka assalaamu alaykum walaal sayta qoraal dheer oo qurxan marka maadaama dadka caawisa sheeganaysa soonka la jooga dad masaakiin oo u baahan jirmay meeshan aad joogo hadda caawinaysa yani sadaqa way furanta ma hano inama mu'minuuna yaqwa ilaahi subhanahu wa ta'ala laakiin lama dhin qabiile bila walaal marka dad caawinaysa waxaan dhahay maanta soon la jooga soonka hadana haba ahaatee maxay ahaydeen tibir Ramadan waa la joogaa dad oo walaal afur baahanaa jiro hadda caawinaysa waadi marka wax hadalko ilaa hadda la yaabo wallahi qoraalko ay soo qor ilaa waa haa qoraalkiis inta dhigay soo saar hadda u baahantiin marka ninkaas marka soo xasuusto waa la yaab marka gabadhiin waxa dhila nimanka Facebook idinka soo waca walaalayaal iska balooga iska daayay nimankaas ninkaas oo dheer ay soo mar wallahi duu sabca maanta wax ugu weyn hadii iga keen maanta muuqaal laga keen gabadhan la dhaam xaaba wajigeyga furan waa taasna boob ka baqayb anaa buuxta wajigeyga furan marka wajigeyga furan Facebook anaa soo dhigmo ka baqataas wajigeyga furan Facebook waa soo dhiga meesha rabana soo dhiga taasna ceeb ma laakiin waxa ceeb ah adoo gabar muslimida islaamnimo sheeganaya xijaaban qiimo leh qaayale abaayo boqolaal qof kuga haminayso inuu ninku bahdilo inuu nin muuqaal ka duubto taas xanuune muuqaal dambe soo sameyn doona insha Allah caqabadaas ugu bixiyeen ugu gudbi lahaydeen laakiin aan ninkaas taariikhdaas la soo mar wadaas dheer isoo mar lacag ku shuba lacag inta keen lacag inta dhan waxa qoftan lacagta ku soo xadgeli soo si ila ma hadii lacag uu si bil lacag hadii uu si ina xishada qismanta waxaan sameeyay ina dhahdid ilaa inuu ilaahay ku heelay maahane aan ninkaas ilaahay iga heelay waalidkiina uu ii heelay wiilkaas walaalkiina uu ii heelay naftana uu ii heelisay muuqaalkan inta ku soo gabagabeynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh